tiradada ayaa la soo sheegayaa inay ku geeriyoodeen halka ay qaar kalena ku dhaawacmeen rabshado ay sababeen doorashooyinka la isku haysto ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Musharaxa laga guuleystay ee Martin Fayulu ayaa ka soo horjeeday natiijooyinka lagu dhawaaqay. Felix Tshisekedi oo ah xisbiga mucaaradka kale ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashada iyadoo ay jiraan eedeymo inuu heshiis la galay madaxweynaha xilka ka degaya Joseph Kabila si ay xilka isula hayaan. Mr. Fayulu ayaa sheegaya in garsoorka dalkaasi sideedaba uu Joseph Kabila uu u taliyo sidaas darteedna aanu ku helaynin fursad uu ku guuleysto. We know that the constitutional court is really surrounded. Waan ogahay in maxkamadda dastuuriga ahi ay ku hareeraysan yihiin Kabila iyo xulafadiisa. But we want laakiin ma doonayno inaan fursad isaga u siino uu ku dhaho sharciga maynan marin. waxaan samaynaynaa wax kasta si loo helo natiijo cad. Mr. Fayulu waxa kale oo diiday inuu taageerayaashiisa u sheego in ay joojiyaan dibadbaxyada ay wadaan iyo rabshadaha halkaasi ka socda. Booliska ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen sidoo kalena 17 booliis ay dhaawacmeen rabshadihii ku xigay ku dhawaaqida natiijooyinka doorashada. Mr. Fayulu waxa uu sheegay inuu ka baqay rabshado kale ay sii dhici doonaan haddii uu aan gudida doorashadu aanay soo saarin natiijada saxda ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhankiisa Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in rabshadaha la joojiyo. Afhayeenadiisa mid ka mid ah ayaa sheegay in xogayuhu uu yiri waxa loo baahan yahay in dhinacyada oo dhami ay isxakameeyaan oo ay khilaafyada doorashada ku xaliyaan si degan oo sharciguna uu dhigayo. haddii aynu eegno dhanka kale kiniisadda Kaatoliga ah oo awood weyn ku leh dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa iyaduna su'aalo ka keentay natiijooyinka doorashada. wariyaha BBC-da Gawes Kawana ayaa sharaxaya doorka kiniisadda Kaatoliga ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. The Catholic Church has been very horaba kiniisadda Kaatoligu waxa ay lug weyn ugu lahayd sida loo abaabulayo dadweynaha iyadoo marar badan ay ugu baaqday dadku inay jidadka isugu soo baxaan gaar ahaanna marka la rabo in la helo xuquuqda dimuqraadiga ah iyo isbedelka. imikadan aynu joogno kiniisadda Kaatoliga waxay dad badan u arkaan inay iyadu ka mistaaqiyad weyn tahay qaar ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah. kiniisadda Kaatoliga waxay sheegtay intii aan la soo saarinba natiijada doorashada hordhacda in aanay iswaafaqsaneen xogta la soo ururiyay la hayo ee ay hayaan kormeerayaashii doorashooyinku iyo natiijadani. kiniisadda Kaatoligu iyagu may sheegin magac khaas ah laakiin ay ku baaqdo kiniisadda Kaatoligu in dadweynuhu ay isu soo baxaan taasi waxay keenaysaa in halkan xaaladdu ay ka sii darto oo laga yaababa inay gasho xaalad rabshada ah. into a violent situation.